aad iyo aad u mahadsantihiin. Waan arkay fariimihiina, waan idinka gadoomay wixii tale iyo wixii waana ahna waan idinka qaatay dhammaantiina kala ilaab. Waan arkay dhiirigelintiina. Okay, maanta waxaan rabaa inaan ku baro qaabkaad lacag AVC Plus kugu jirto aad ugu diri lahayd Sarafle, qaabkaad ula xiriiri lahayd, kadib markuu kuu soo diro lacagta halkaad ka fiiri lahayd qaabka lacagta kugu soo diraayo. Dhammaan waan ku tusaa, waan kuu sharaxaa, waan kuu dulmaraa, muuqaal ahaan ayaan kuu tusaa. Okay, marka kugu horeysa aad channelkan soo booqato hadday tahay, fadlan subscribe saara channelkan, kadibna waxaad furataa gambaleelka. taas waxay kaa saacidi doontaa muuqaal walba aan soo gelino oo ku saabsan cashiradan in fadhigaaga adigoo socdo, adigoo laamiga marayo, adigoo sports daawanayo, adigoo meel walba joogo in notification uu kuu soo diro channelkeena oo ku dhahayo channelka Mira Show waxaa la soo geliyay muuqaal cusub oo ku saabsan cashir hebel hebel hebel. waa mahadsan tahay haddii aad subscribe saartay. sidan kugu faa'iideeyay adiguna igu heli. Like saar muuqaalka, subscribe saaro. soo dhawaada. Okay, halkani aan ku jiro waa Gmail-kayga. waxaan kiciyay ama aan samaystay ciwaan Perfect Money ah. kadib Gmail-ka ayuu kood igu soo diray. koodka ayaan soo copy garaystay. kadib waxaan baasti ku dhahay akoonkayga Perfect Money-ga. haddeertaan sida idin muuqata waxaan login dhahay ama koodka aan geliyay akoonkayga Perfect Money-ga. sida u jeedaan akoonkayga waan kiciyay. koodkii uu igu soo diray Gmail-ka ayaan geliyay. kadib waa ii kaxay akoonkayga. sida u jeedaan akoonkayga afarta dhinacaan ka maray waa 00 balance. akoonkaasa u jeedaan ayaan u baahanahay in aan lacag kusoo shubto. lambarka akoonka waa kana ila fiiriya. waxaan rabaa inaan la xiriiro Sarafle kadib uu akoonkaas lacag igu soo shubo. waxaan imid Sarafle. waxaan rabaa inaan ka codsado inuu ii soo diro $1.10 si aan u dhigto 1xbet. waxaan u qorayaa qoraalkan u jeedaan. haddeertaan waxaan imid ciwaankayga ama akoonkayga Perfect Money. sida u jeedaan waa 00 lacag kuma jirto. Okay, sida u jeedaan lacagtii way soo gaartay. akoonkayga marka hore wuxuu ahaa 00. ID-gayga waa kahay, akoonkayga waa kahay $1.10. sida u jeedaan hadda akoonkayga Perfect Money lacag waan ku soo shubtay oo Sarafle ayaan u diray AVC Plus. kadib wuxuu igu soo bedelay Perfect. Okay, sida u jeedaan hadda waxaan soo galay 1xbet. waxaan ka doortay qaybta deposit. waxaan sii taabtay Perfect Money. waxaan u baahanahay $1 inaan dhigto 1xbet aan ka soo bixinayo akoonkayga Perfect Money. Okay, confirm. Okay, good. hadda waxaan soo galay Perfect Money. waxaad doorataa leedhahay $1 inaad deposit garaysid. Yes, make payment. waan riixay click ayaan siiyay. kadib
wuxuu igee doonaa halkan idin muuqata. aan zoom idin soo dhaho. wuxuu iga codsaday in aan geliyo perfect manigeyga, member edigeyga iyo baasweerkeyga iyo capturekaas yar, kadibna aan sii dhaho okay. bal aan yar zoom kuu soo dhaho. wuxuu ii dhahay gmailkaaga waxaa lagu diray kood aad lacagtan ku diri lahayd. waxaan aadi doonaa gmailkeyga. hadeertan sidaa ujeedaan gmailkeyga ayaan imid. waxaan arkay meseejka ii soo direen perfect money. kadib kilig ayaan siiyey, waan ku dhuftay, sida tan ayuu soo saaray. intaanoo qoraal uma baani, keliya waxaan u baahanahay koodkaas. koobi ayaan dhahay, kilig waan soo qaatay. waxaan si diragti u imaaday onexbet. waxaan baasta ku dhihi doonaa koodkan soo qaatay, kadibna conformi ayaan dhihi doonaa. kadib wuxuu i keeni doonaa halkan idin muuqato. waxaan dhihi doonaa conformi payment. ilaa hadda waxaan ku dhex jirnaa onexbet qaybta depositka. haddaan ku xasuusiyo, waxaan u baahanahay $1 in aan deposit garaysto. akoonkeyga waa kay ee $1 ku jirto. halka senti kaleetana waa fee waxaa goosanayso shirkadda perfect money. okay, conformi payment ayaan dhihi doonaa. halkani waa magaceyga iyo member idgeyga iyo informationkeyga. okay, halkanaan dhihi doonaa conformi payment ila soco. okay. sidaa ujeedaan waxaan dhahnay conformi waa qeybtii ugu dambeysay. haddii aan dhahno markaan conformi, waxaa si daaragti ah lacagta $1 u dhigmi doontaa onexbet. okay, aan dhahno conformi, si degan ila soco. waxaan dhahay conformi, waan riixay. hadda lacagteeni waxay si toos ah u gali doontaa onexbet. sida hadda ujeedaan lacagteeni waa la diray. okay, aan aragno. sidaa ujeedaan akoonkeeni onexbet waxaa si toos ah $1 ee ugu soo dhacday akoonkeeni. okay, haddaba haddii aan perfect money lacag kusoo shubanay, kadibna aan usoo wareejinay onexbet, hadeertan maxaan rabnaa aan sameynaa? okay, waxaan ku fahansiinaa ama aan ku tusaa hortaada inaan ku faa'iido. inta aan kuu sharaxayo muuqaalkani waxaan saaranayaa ciyaaro. muuqaalkani ciyaarahaas khasaare iyo guul waxaan kala kulmo waan kuu soo gudbinayaa. waxaan ku tusayaa kulan isboorti in 99% laga wanaagsan yahay, laga horumarsan yahay, laga casrisan yahay. balse waa goorme? waa markii aad si jabi degan igula socoto, aad channelkan subscribe saarato. okay, hadeertan waxaan rabaa ciyaarahan waa live. hadda ayay socdaan 72 daqiiqo ayuu kulanka marayaa. waa kulanka Iceland iyo Hungary ka dhexeeya 72 daqiiqo maraya. Iceland 1 gool iskale. waxaan rabaa in aan ka faa'iideysto. waxaan dhahaa kulankan gool iyo gool darab waan sugayaa, laakiin ciyaar 70 daqiiqo marayso lacag ka samee, xitaa 1 senti ha noqoto. waa faa'iido aada u weyn. laakiin waxaa fahmi karo qofkii khabiir ah oo sheekadan qamaarka fahmay. taladaa ku siinaya waxay tahay, kulan aad ka faa'iideyso 7 senti 1 senti ha dhaafin.
halkaas sintiyaa qabanay, kulan kaleeto madaxa kuu degayo. Woon markaa aragtid waa degay, kulanka labaad wax fiicanaa qabanay. Laakiin haddii aad dhahdid marka ugu horeyso waxaan qabanaa ugu yaraan $10,000 $100,000 waa ku hoogay. $1 meesha ku aragta ha dhaafin, $10 aragta ha dhaafin, $30 aragta ha dhaafin. Hadda waxaan rabaa ciyaarahan oo dhammaadka ah oo maraya 74 daqiiqo in aan ka faa'iideysto. Haddii aan ka sameyn karo 6 senti ama 7 senti waa faa'iido. Waa faa'iido. Waxaan saari doonaa oo keliya 30 senti. Hortaada ayaan ku saari doonaa guul iyo guul daro, khasaaro waxaan kala kulmo. Waan kuu soo bandhigi doonaa. Ila arag ayaan ku dhihi doonaa. Hortaada ayaan ku sameeyay lacagtan ama hortaada ayaan ku khasaariyay lacagtan. Laakiin inkastoo OneXBet la faa'iido boqolkiiba 85 ee u badan tahay qofka in uu faa'iido. Haddii aad halkan la timaado $10, marka koowaad aad khasaarto $2, waa hawaal marka saddexaad, afraad, shanaad, lixaad in aad faa'iideyso $10 meesha la soo gashay 4 jibaarkeeda, 2 jibaarkeeda, 3 jibaarkeeda. Anigaan hadda kula hadlayo OneXBet waxaan ka sameeyay lacag dhan $6,000. Laakiin ima aaminaysid oo waxaad isleedahay waa been. Wuxuu soo aad ku dhahayaa ama kuugu sasabayaa ama kuugu qancinayaa ama damaca kaaga soo ridayaa in aad imaadid OneXBet. Laakiin taas waa been. Haddeertaan OneXBet waxaan arki doonaa ama aan qiyaasi doonaa oo wallaahi oo billaahi oo tallaahi ah. Hortaada ayaan lacag ku dhigan doonaa, khasaare iyo faa'iido. Ama $1 isla cashirkan aan sharaxayo ma jiro ugu yaraan 3 ciyaar jirta saa u maleeyaa. 3 ama 4 ciyaar ama 5 ciyaar oo socdo qaramada oo Yurub. Waan ka faa'iideysanaynaa. Waxaan saaraneynaa 30 senti. 30 senti ayaan saaraneynaa. Hadda 3 ciyaar waxaan ka faa'iidi doonaa 4 senti oo keliya. Igama dareyso haddii aad 30 senti khasaaro, marka xigto waan guuleysanaa. Okay, sidaa u jeedid hadda tradekan waa galay. $1 laga jaray 30 senti waxaa ii soo hartay 70 senti. 30 sentina waan qamaaray. Okay, ciyaarahan hadda aan lacagta dhigtay midka ugu badan ama ugu yar waxay maraysaa 75 daqiiqo. Waa live hadday socdaan. TV-ga ayaa ii daaran, waan daawanayaa. Okay, waxaan demi doonaa ama aan pause gali doonaa kaamirada. Ciyaaraha markay dhammaadaan guul iyo guul daro, halkaas $1 aan ku shubtay OneXBet waxaan kaga faa'iiday, waxaan ku khasaaray waan ku tusi doonaa oo wallaahi ah oo billaahi ah. Okay, wax yar aan sugno ciyaaraha inta ka soo dhamaanayo. Okay, sidaa u jeedaan $1 waxaan ku soo kordhiyay $0.5 iyo 2 senti. Sidaa u jeedaan hal kulan waa khasaare, 3 kulan kaleeto waa faa'iido. Waa inta wallaahi fiiriya. Waa halka aan kuu sharaxayo. Halkan ciyaar ku guuleysta $1 iyo bar. Ila fiiri. Waa penalty. Rigoor isla gaareen. Waa fiiri waxaa dhahay Scotland ayaa badinayso penalty-gan. Waa ciyaar soo dhamaatay. Waan ka qabsaday. Hadda $1 aan ku shubtay akoonkan. Waxaan ka haystaa $1 iyo bar. Marka hadda adiga ku weydiinayay qaybta comment-ina ku soo qor. Kulan Sport iyo OneXBet yaa fiican, yaa khasaare badan, yaa faa'iido badan. Adigoo fikiraya muuqaalkani si fiican u daawaday, qaybta comment-iga igu soo qor. Kulana fiican ama OneXBet fiican.
fadlan muuqaalkani gaarsii asxaabtaada, walaalahaaga, familkaaga ama inta aad taqaanid ama group ama Facebook ha noqoto ama WhatsApp u gudbi si ay kulan ugu soo guuraan. saraf nadiif ah haddaad u baahan tahay oo aad rabtid lacagtaada sida hadda aan kuu tusi in lagu sarafo, waxaad la xiriiri kartaa lambarkani shaashada saaran. waad wacaysaa ama WhatsAppka fariin waxaad u qoraysaa waxaan u baahanahay sarif. soo dhow ayuu ku dhihi doonaa, sawir ayuu kuu soo diri doonaa oo ku qoran tahay faahfaahinta sarafka. kadib khidmadda aad u baahan tahay ayaad u diri doontaa, kadibna khidmad yar sintiyaal ayuu kaa goosan doonaa. akoonkaaga Perfect Money ayuu kugu soo shubi doonaa lacagtaada sida hadda aan ku tusaynay. kadib waxaad dhigan doontaa 1xbet. soo dhawaada oo lambarkani hadda la xiriira. sariflayaal badanaa jiro laakiin badankood dad badan oo la qiyaamay oo lacagta aan loo soo tuurin oo lala gambiyeyna way jiraan oo ila soo xiriiro waxaan dhan ka aamin baxay. sarifkan iyo 1xbet nacay, laakiin sarifkan anaa kaa hubo lacagtaada si degdega ku heli doontaa. fadlan hadda gaar oo la xiriir. waa mahadsantahay, soo dhowow.